xidhxidh waxay si rasmiya u martigelinaysaa shirka beelweynta bahar same oo la filayo inuu bilowdo maalinimada berrito munaasabad ballaadhan oo lagu daafurayay shirka waxay ka qabsoomtay isla degmada xidhxidh ee gobolka sool siyaasiyiin cuqaal waxgarad iyo weliba garaadka beesha xurmadle garaad jaamac garaad cali ayaa ka qaybgalay munaasabada lagu daafurayay shirkaasi madaxweyne galaydhna waxa uu qayb ka ahaa siyaasiyiintii fadhiyey kulanka lagu lafagurayey aayaha beesha maxamed garaad bahar same shirkan ayaa la filayaa in diiradda lagu saaro aayaha beesha wax ka qabashada arrimaha colaadda soo laalaabatay adkaynta midnimada ilaalinta deegaanka iska bixinta magaha dul yaalla beesha iyo qaar kale dad yahow ilaahay baad u noqonaysaan alla u noqda allana ka cabsada subxaanahu wa tacaala salaadana si wanaagsan u ooga oo u tukada mushrikiinta oo kale diinlaawayaasha ha noqonina iyagu diintoodii isu keeni lahayd ayay ka tageen dad kala yaacsan bay noqdeen oo qolo waliba gaarkeed ay isu qancisay oo qolo waliba aanay qolada kale ogolayn taladooda ogolayn oo tayadooda ogolayn ayay noqdeen war kuwa ha noqoninaba ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala sidaa awgeed waxaa la rabaa dadku inay midnimo iyo wadajir noqdaan qoyskan iyo reerkani ummad kala maarmaysa ma aha qof aynu ka maaranno miyaad garanaysaan qof laga maarmaa ma jiro qof wax matare ahna ma jiro wax tariyare waa jiraa laakiin qof wax matare ah ma jira sideedaba ummadda cid laga maarmaya ma jirto waxaan laga maarmayn ninka isinka waxaan laga maarmayn ninka siyaasiga waxaan laga maarmayn ninka caaqilka ninka ganacsadaha ninka diktoorka gabadha inanka odayga qof laga maarmaya ma jirto ku hadla kelmadda deegaanka haddaan nahay deegaanka xidhxidh marti sharafta qiimaha iyo qadarinta leh ee uu ka yahay garaadka guud ee beelaha dhulbaantay garaad jaamac garaad cali ee uu laba ka yahay siyaasiga weyn ee caanka ah madaxweynaha qaatumo professor cali khaliif galaydh ee uu saddex ka yahay cuqaashu ee afar ka tahay culimmadu ay shan ka tahay ergadu ee ay lix ka tahay dadweynaha ka soo qaybgala sharafta leh intaba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada degmada xidhxidh ayaan idin leeyahay xidhxidh waa magaalo bahar same annaku waa idin yeel qaadnay yeelka ayaanu idin dhignay diyaar ayaanu u nahay dadweynaha ka soo qaybgalay ee sharafta leh inaanu soo dhoweyno wiil iyo gabadh waa isku waaninaytaa diyaar baanu u nahay waana idin muuqataa waxaan walaalayaal idinla socodsiinayaa in shirka ajendaysi dhabta ahaa la qaybin doono berrito loo qaybin doono ergooyinka iyo inta kale mudan ee markaa golaha joogta hawlihiisuna ay hawlihii loogu talagalay ee shirka loo qabtay ee nabadda iyo xoojinta nabadda waxaan u malaynayaa shirkan waxaa loo qabtay baahiyaha aynu u qabno arrimo dhowr ah arrimahaasuna in sumad gooniya lagu kala qoro waxaa looga dan leeyahay waa arrimo culus oo laga yaabaa inaan qofba aan si loo wada aqoon laakiin siyaasad iyo dhaqan iyo horumar iyo cilmi uu doctor maxamed cabdiraxmaan aadba u yaqaano oo ah cilmigan bay'adda intaba waa ku ararkayay ajandada ergooy tolweynow waxaa la isugu yimid maanta shir noocan oo kale ah in dhawaala aynaan u qabsan waa dana ina hor yaalla waa dana aynaan ka seexan karayn waa dana aynaan dayici karayn waa dana aynu u baahannahay inaynu isu taagno gabadha u yar ee bahar same haddii la weydiiyo maxaa ka quban bahar same waxaa laga yaabaa inay tilmaami karayso inaynu tilmaanno keliya isugumaynaan imaanee waxaynu isugu nimid sidaynu u fulin lahayn sidaynu u qaban lahayn ciddii inoo qaban lahayd inaynu isla tilmaansanno insha allahu tacaala waxaa u horreeya waa sii xoojinta iyo ilaalinta midnimada sidii sheekhu sheegayay sheekh maxamuud ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiyo khudbaddii qalbi dhaqaajinta ahayd oo inoo akhriyey lama oran karo midnimada maxaa yeelay waynu midaysannahay wax badan baa ina mideeya diintaa u horraysa haddaan ilaahay nimcada islaamka ina wada siin lahayn
oo aynu diimo kala haysan lahayn dhibtanaynu isugu soo jiri lahayn oo xabad baynu iskala daali lahayn ilaahay qalbigeenna nimcada uu adoomadiisa inta uu jecel yahay siiyay ee islaamka ah baynu ku midaysannahay xamse raadeeye RTN xidhxidh